بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد أبو كرعلي كان يمد قبل شباب واسي قارهان دقمة أفقوي وحا لواتنا هو دولة فدرالك أدي مرول بجلد كي حريسو نبغينا هو أرقنا برينا وإيد ميلان كسو إيدنا نبانا دولة وحن قعد سنينا سنسا شرولان إنا إيدان جلد كي نوفوران وإيد أبوين تسو ما تاي جابوتي أن تغني مسلنا رقيب قالني مدحوينا سو ديري وال نوفور جدك هادنا نيغو شعب يدلك اسكرا يا جدك نغيرا مدحوينا وينو نوفور جدك برلمانك waxaan ku codsanaynaa sansa sharullaan inay jidka furaan aday amaan rabaan jidka ha furaano adiga amaan ma helayaan be salaam alaykum iyo wadooyinka oo magaalada Muqdisho oo xiran saameyn weyn iyo dhibaato badan ay nagu hayaan aniga waxaan kamid ahay dadka dhalinyarada oo ka shaqeeya bajaajlada iska dhaaf bajaaj magaalo socoto hadda lugteena ayaa naloo diidayaa waxaan ka soo lugeeyay hadda wadada muladooyisha maka al-mukarrama ilaa Tareebiyaan lugaan ku imaaday ilaa hadda waxaan sii rabaa Banaadir X control wax bajaaj iyo wax magaalada marayo lug male wax saameynta u weyn bari iid waaye maalinka mulfarac waaye ay wadooyinka waa xiran yihiin dhibaato aad u weyn naga haysto marka waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo madaxda dawladda saraakiisha dhammaan inay wadooyinka noo furfuraan si maalin iyo mulfarac ay tahay oo iida aan farxad uga qayb qaadan dawladda waxaan ka codsanaynaa inay wadada noo furto waan lugeynay meel baan ka lugeynay meel baan ka baxnay wadada baan naga soo celinayaa حتى عبد بلاش ما أنت ولا إلا ما كسر حنا أصلا دود إنه نص ده ميدا وضد جو أنا فوان إيد ما أنا قال ما أنا كشقة سلام ما نركض ما نخسر قدرنا ما لهن جانا وقنا حتى واحد قدنا وينه بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحمد الله حسين أو كميدا قناع صدا كو قناع صدا وضد مكة المكرمة بقولك بقول آد يعني وحنا ودين كحيرن سببته أنا كو قناع صدا هذا النهاي وحن قناع صنا بلها عيد الأضحى عيد الفطر marka hadda waxa la joogaa ciidul adha ayaa soo dhow oo maalintii biraha la filanaya in insha Allah taala bilato boqolkiiba boqol aad waxna wadooyinka way xiran yihiin ganacsigeena boqolkiiba boqol hoos ayuu u dhacay maalmihii aan shaqaysan lahayn oo aan yaani ribxi faa'iido aan helin ayaa la joogaa hadda waa kan furahayga waan haystaa ganacsigu waa naga xiran yahay xilligaana soo xirno kasii rawaxeena ka tageena sababtuna waxay tahay wax ganacsi ma hayno wadooyinka way xiran yihiin dadka waxa naga iibsada boqolkiiba boqol gawaari ku imaan jireen marka dawladda waxaan ka codsanaynaa in wadooyinka ay noo furto in xilliyadan oo kale xasaasiga ee ganacsatadu ay wax faa'iidaan in aan wadooyinka laga xirin oo sidoo kale dhibaatadan ay dhicin marka aad iyo aan waxna wadooyinka xiran waxaan ugu baaqaynaa in dadkan loo naxariisto ganacsatada loo naxariisto boqolkiiba boqol ganacsatadu waa dadka isha wadanka waa ganacsatada hadii ganacsiga laga xiro wax faa'iido ma jiraan wax horumar ma jiro marka waxaan codsanaynaa in wadooyinka noola furo waxa waa horta wadada waxay xiran tahay 2 bari iyo 3 bari meelaas hadana aan horta shacabka oo yaani wadada maro waxaan ku marnaa lug 3 bari mar heesano baawur aan raacno biilan waxaan biilnimo heesano waan lugeynaha hadda jar taasna waxa soo way shirka igad darteeda ayaa sababtay waxaan dadka meelaan ka shaqaysto shaqada ma heesano baawurna ma heesano maanta reerkeen waxa u geeyay jabkeen ku jirin hadda